wacan oo wanaagsan dhammaantiinba daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan halkan waxaa idinkala hadlaya weliya Saciid Jamaal. Barnaamijka waxaan duubayaa si gaar ah oo aniga aan si gaar ah u duubay maaha midaan TV-ga aan matalo TV-ga qaranka Soomaaliland mid khuseeya maaha, waa mid aniga shakhsiyan fikirkayga ay la noqotay inaan dadka la wadaago kaas oo ku saabsan shirarka ay qabsadaan beelaha reer Somaliland ilaa iyo markii dalka dib loogu soo noqday dib heshiisiintii shirarkii la qabanayay ka mid ahaa. Anugu shakhsiyan waxa aan shirarka ay qabsadaan beelaha Somaliland aan u kala saaraa laba. Ka koowaad waxa weeyaan mid lagu guuleysto hada jeer oo beelahaas isugu yimi meesha ay go'aamo ka gaaraan dabeetana ama ay ku gaaraan dabeetana go'aamada ay ku gaareen ay noqdaan qaar wada fula ama haafulo ama barkood ama wax yar oo ka mid ay fulaan. Taasina waa faa'iido oo khasaare maaha. oo haddii maanta la yidhaahdo iskuul aanu dhisano doono beeshaana meeshaan deganahay ama aanu dhisano waddo ama saldhig boolis oo dabeetana waddadii suurtoodo ama saldhiggii booliska ama MCH-kii waa faa'iido weeyaan. waana dhacdaa marar badan waan aragnay oo beelaha Somaliland ay samaysteen. waxaa kaloo jira mid isagu aan guuleysan oo noqda dhicisow baa jira oo inta kharash badan iyo waxyaabo badan la geliyo dabeetana haddana aan wax midho ah ka soo bixin, taas oo sababo badan loo xiriiriyo oo dabcan ay ku kooban tahay dadka qabsaday oo iyagu wixii ay go'aansadeen aan ka soo bixin. haddaba guud ahaan shirarku waa maxay? maxaase dadku qabsadaan? dhibaato ma leeyihiin oo dalka Somaliland wax dhibaato ma ku keenayaan? يعني واحد سؤال بدنا إن السعودية أنا شخصيا قاسي سعيد جمال ها وحيلة تاي شركة قبس يقول إن أنا هين واحد بقى هبير عتي واحد بقى أنا هين وحنا أمسنا وكالة دلك Somaliland إن عن تذكيسة majority كيسو أي الحشالو قبل وأنا لو شيء إن دلكنا إلى السودان وما أنت أركيسيد إن عالم كدوين أما منطقة يكونوا ليهين أي كجدوينهين الحشرات دلكود أي وهي دلك هذا تكتيد وأنا وكان قرب شوقة أنت جي واحد أركيسها دلك سوي دلك تشعلين يوحبا حيسن هذا دلكود قاعد بيتشعلين وحكوا الله ياب كل نقنية عالم السومال لأن أميرو بكتكين ودلك رحت أكدكتين ما هكلي مركب مناسبة ما عادي أحد دلك وقشين بعبرتو كدكين ودوين تصنع كل ساعة دلك يسوي تشعلين markaan shakhsiyan ma qabo in dadkan dalkooda looga boqo ama looga baqayo. waxay ila tahay in dadka loo ogolaado inay shiraan oo dalkan waxa weeyaan iyaga u soo dagaalamay, iyaga imkana ilaashanaya, iyaga shalatana 1960 doonay inay ku la midoobaan walaalahooda Soomaaliyeed maantana ay ka go'antay inay ka soo go'aan cid khasbaysan ma jirto. reer kasta oo Somaliland ka midana majority-gooda waxaan ila tahay in ay adduunka meel isku raaca ma jirto oo wax la isku loo wada dhan ma jirto, laakiin waxa lagu xisaabtamaa majority ay la soo majority-kuna waa 51 oo haddii 49 ka soo horjeeday 51 ay fikir aaminsan yihiin kaas ma raacayo oo loona hogaansamayo. haddaba aniga waxay ila tahay in shirkan hadda ay ku baaqeen beelaha Ciise Muuse horaba way qabsadeen waxaan filayaa inuu ahaa kii loo oran jiray dan iyo duco waxyaabo badan oo ka gaadheen dhismayaal badan bay ku samaysteen wax badan bay samaysteen in dawladuna runtii way ku mahadsan tahay oo imika way ogolaatay inay qabsadaan. waxa aan rajaynayaa in shirkoodaas loo ogolaaday ay qabsadaan iyaga laftooduna ay ogaadaan dareenka dawladda iyo shacabka oo waxay tahay looga kacsan yahay ama looga shakisan shirkooda ay tahay arrintan dekeda berbera ee taagan aanay wax kala ahayn oo maanta haddii aan dekeda berbera shirkada joogin u malayn maayo in looran lahaa shirkan joojiya way dee beelaha kaleba way shireen oo qaar ba hadda shiraya horena waa u shirteen cidna looma diidin. laakiin jira markaad aragtid in loo diidayo shir beel macnaheedu waxa weeyaan ama waxaa jira sabab baa jirta oo dawladdu ay maadaama ay amnigii iyo nabadgelyadii guud ilaalinayso waxa weeye waxbaa jira saantan imika muxuu ahaa dekeda berbero kale. marka waxaan rajaynayaa in shirkaasina uu qabsoomo khayrna ka soo baxo.
waxaan ka rabaa inaan ka hadlo dekeda berbera iyo meelaha guud ee ummaddu ay leedahay. dhulkaasi waa dhul guud, anu magaalada berbera ka hadli maayo iyo deegaankeeda iyo cidda degta, taas shaqo ku meliya inaan ka hadlo. waxaana dee dabcan kala saaraysa oo maadaama noqonay mujtamac dimuqraadiya doorashada oo marka codka lagu rido dee qofkii degan ama deegaankiisu yahay uu soo baxaya. marka taas hadal uma arkaba inay u baahantay in lagu murmaba yaa degayaan degin. laakiin marka laga hadlo hantida dowladda, anu waxaan aaminsanahay in dowladda loo daayo hantideeda sida adigu aad qofku ahaan u leedahay gaarigaaga iyo gurigaaga iyo waxaa gaarkaa u leedahay bay dowladduna u leedahay dalka dhanba iyadaa leh. caalamka saas ku socdaa, waa in dowladdu ay maamushaa wixii iyada u dana ee dalka ay markaa gacanta ku hayso. waayo qarannimada marka dowladnimada laga sheekaynayo waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan waa dal iyo dad iyo maamul. marka waxa weeyaan maamulkaas shuruudaha kana lagu sii xidhaa waxaa ka mid ah inuu yahay maamul shaqaynaya, haddii kale dowlad maaha. marka haddaan lugta qabanno oon idhaahno dekedan ma lihid ama wadadan anigaa dega ama halkan dhulkan batrool laga soo saarayay ma qabanaysid, markaa qarannimo ma jirto, dowladnimo ma jirto. waayo shardi ka mida shuruuddii ayaa meesha ka baxay. waa in markaa taas lagu xisaabtamo oo markaad leedahay hanti guud oo dowladdu ay sideedaba iyadu leedahay inaad tidhaahdid ma soconayso. macnaha dowladnimadii qarannimada doonaysay ayaadan run ka sheegayn ama tiibaad lugta qabanaysa dad xitaa aadan ogeyn. waxaan kaloon idiin sheegayaa dhacday yarbeer dhacday oo magaalada qaahira oon markaa arday ka ahayn anagu 1994 ilaa naxariistee waxaa noogu yimi magaaladaas madaxweynihii hore ee somaliland maxamed xaaji ibraahim cigaal oo booqasho ku yimi. markaa waxaan ku tagnay meesha arday reer somaliland ugu tagnay oo booqasho isagii wasiiradiisa hudheel u deganaa filaya in la odhan jiray hoteelkaas Sheraton Jazeera. markaan u tagnay la sheekaysanayay nin baa weydiiyey maanta Hargeysa jooga oo xukuumadda somaliland hadda galay, magaciisa wuu ogyahay, intii markaan tagayna waa weydiiyey sheekada. marka su-aashuu weydiiyey waxay ahayd waana markii 96 dagaaladu soconayeen Hargeysa ka soconayeen. wuxuu ku yidhi madaxweyne airportka maxaad ugula dagaalamaysaa buu ku yidhi beesha ciida kale maxaad ugula dagaalamaysaa. wuxuu ku yidhi adeer airportkan waxa iskale buu yidhi somaliland baa iskale buu. ta kale wuxuu yidhi airportka waxa la airportka Hargeysa, airportka reer hebel lama yidhaha buu yidhi isagoo ciida gale ujeeda. markaa waxaan ku nidhi buu yidhi ciida gale meeshii maamula madaxdii noqda kasta noqda laakiin dowladda hoos kaalaya ayuu ku yidhi. laakiin meeshan dowladdu iyadu ha lahaato baawarka oo wixii rabto hadday ballaarinaysa hadday yaraynaysa hadday diyaarada keenayso waa in iyadu ku shaqo lahaataa loo daaya. halkaa markii sheekadu maraysay ayaa nin kale oo beeshaa ka hadlayay oo nala fadhiyey isaguna saaxiibkaya aan jeclayn magacyada markaan ka sheego uu ku yidhi oo markaa miyaad la dagaalamaysa. dabeedna wuxuu ugu jawaabay askar iyo ciidan baan leenahay buuri sida fardaha u naaxay, xabad baan aan la dhacaynaa buuri wixii ka hor yimaada qarannimada somaliland buuri iyo dhulkeeda. waa cigaal ilaa u naxariistay madaxweyne cigaal waana ku saxnaa waana ku taageersanaa. ninkaas maalinta uu xanaaqay kelmadda uu ka xanaaqay madaxweyne ku yidhi laakiin dee uu ka garjoogay oo dhulkan dee dhul dowladeed magaaladana airportka Hargeysa la yidhaahdaa. marka haddaba dekeda berbera waa deked ay leedahay magaalada qarankuna uu leeyahay dowladduna ay maamusho weeyaan. adduunkuna wuxuu shaqeeyaa qaab iyo system buu shaqeeyaa. reer kastana dad baa ugu jira baarlamanka iyo muxuu ahaa dowladdaba. faa'iidada kasoo baxaysana waa faa'iido inta badan dee waxaa la yidhi dheri ninka u dhow baa laf kala baxa. reer berbera aad bay uga faa'iidayaan haddii barnaamijkaas uu meel maro. marka inay ogolaadaan oo ay daayaan aniga aan ila tahay rabshadana la iska joojiyo. cid wax gaar laga qaadaya ma jirto. dekeda berberna cid ay ka gashay oo gaara oo waxaray ka gashay dee ma jiro. qofkii sheeganaya ha soo taago ooba loo celinayaa ilamaha
oo markii hore waxay iska ahayd meel dabiiciya markii dambena dowladda niyada dekadeeda cismaaniin samaysay markii dambena waxaa sameeyey muxuu ahaa ii sheeg raashiyaankii iyo wixii baa sameeyey weli waxaa ka horeysay mid kaloo iyadoona dabiiciya markii talyaaniga ingiriisku dagaalamayeen haddana markii dambena ruushka sameeyey waxaa sameeyey dana maraykanka sameeyey iminkana tan kalaa samaynaya bal intaasoo wax weeyaan qabiilka gaarka ah ee wax gaarka galeen hadduu imanayo oo wax ku leeyahay meesha waa la siinaya laakiin ma jirto ay taas intaasaan kaga baxayaa xildhibaanada reeraha kicinaya waxaan u filayaa in iyagu dana gaarahun ay wataan hase ahaatee aanay dan qaran ka talinaya danta reerka toona xukuumadduna waxaan u filaya aanu difaacaynin shaqaalaha ka shaqaynaya meesha ama xamaal ha noqdaan ama wixii raba ha noqdaan u malayn maayo in la taabanayo haddii loo baahan yahay khasab maaha qofku inuu taagnaado weligiiba waxa weeyaan waxaa dhici karta in tirada numberka maxay tahay qalab casri yimaado kale oo qaybta la bedelo marka taana waxaan jeclahay in tababarka la siiyo oo haddii xamaalnimadii ninkii laga daayay intooda wax fahmaysa ama iskuul soo yara gashay in tababar kale la siiyo xagga maamulka oo kale xagga maraakiibtay soo kaxeeyaan soo jiidaan oo kale taagay kaxeeyaan wax kale loo tababaro ayay noqonaysaa laakiin dee dowladdu iyada waxay kala samaynayso taas anisan kaga baxay waxaan rabaa inaan ka hadlo muxuu ahaa doorashada baarlamanka ayaan rabaa inaan ka hadlo si guud ayaan rabaa inaan beelaha somaliland ugu jeediyo inay si fiican ay uga qayb galaan oo ay muxuu ahaa doorashada ay ka faa'iidaystaan maadaama la samaynayo baarlamankii muddo iminka dee 12 sano iska fadhiya meesha in ay soo xushaan xildhibaano aqoon leh wadaniyad leh meeshii ka yimaadeenna og oo u danaynaya waayo iminka markaan tegey waxaan soo arkay dad danahoodun shaqaysanaya oo meelaha ka yimaadeen aan danba ka lahayn caalamkana ma dhacdo waayo halkan aan iminka maraykanka kalan joogno xildhibaankayga waan la hadlayaa waxaan leeyahay matalan qof baa dalkii jooga rabaa in laysoo kaxeeyo waa lagu soo kaxeeyo ku odhanaya wuxuu odhanaysaa waxaan rabaa in alaab dalka keeno okay buu ku odhay warqad buu ku siinaya haddaad dhooftid oo dubay kale lagu khalkhaliyo toos buu la soo hadlaya safaaradda dubay ku taalla maraykanka wixii markaa ku kaambeyn gareeyay lahaa waan samaynaya anigu samaynaya laakiin intaad iska qaadatid codkii dadka ku danaysatid guryo ka dhisatid inaad dabeedna iyagiina aadan xitaa salaamin salaanta xitaa kala jeclaatid oo aadan ku soo noqonin ma soconayso haddaba maanta ayaa shacabka gacanta ku hayaan doorashadoodii ikhtiyaarkoodii dad aqoon leh inay doortaan ayaan kula talin lahaa oo jecelna leh labadaas arrin leh ya dad cilmi leh iimaan iyo ahdiina cilmi dunya mid aakhirba yaqaana dalkana la jecelo kale iyo deegaankooda waliba kale ayaan rajaynaya in ay soo doortaan waxaan kaloon rabaa inaan u sheego doorashada marka la qaadayo dad badan baa soo sharxa oo iska hiyi kaca oo jecel inay soo baxaan oo kursiga fadhiistaan oo malaawo haystaan dee maartay dee lacag laga soo helo waa laga soo helaa laakiin dee dhac baa jira taasa qof kastaan arkay waxaan qaltaagaya taas awgeed baa kursigana matalan 3,000 qof cod wanaad heshaa si aad kursi baarlamanka somaliland heshid ka soo qaad haddii matalan reerkiin uu 2 jilib yahay oo jilibna yahay 4,000 qof haysto reerna haysta 2,000 qof haysto dee maaha in reerkii 4 haysta 4tiiba inankooda ugu shubaan maanta maaha wax mugdi ku jira kaarkii baa la wada haystaa reer kasta uu garanaya kaarkiisa intuu yahay uu garanaya waa in 3,000 kan ugu ridaan kunka harayna wanaws maxaan ku sameynaa dee reer hebel masa haystaa 2,000 haystaa ugu dara mid kusoo baxo waxaa dhacaysa markaa inay helaan xildhibaano ku filan oo soo saara muxuu ahaa danahoodana ka hadla ayaa muxuu ahaa halkaan kasoo bixi doonta marka waxaan rajaynaya inay xisaabtamaan oo kaarkii wii soo baxay ay soo la fadhiistaan imisaanu nahay imisaanu haysanaa imisaanu soo bixi karaya inay yidhaahdaan arrin kale ugu dambeeya rabaa inaan ka hadlo way badan yihiin waxyaabaha markaan dalkii tegay aan kusoo arkay dalku barwaaqo weeyaan maasha allah
maamulku waa fiican yahay dowladda waa laga cabsadaa si dowlad ahaan bay u shaqaysaa dadkana keensaday inay ixtiraamka dowladdooda siiyaan dowladduna ku qadarayso weeyaan dhaqaaluhu wuu socda maasha allah in dalku fiican yahay waxaad ku garanaysaa dhaqaalihiisu ilaa waxaan joognaa dal waaweyn hayweeyadeeda ama waddooyinka waaweyn dalka ayaa xaamiya oo baabuur raran alaabi ka buuxdo oo saa hor iyo daba isu yaacaya baa jira qariiradii qaar waaweynba taas macnaha kusiisaa inay wax socdaan ayaa jira ayaa kusiisaa oo nidaamkii iyo barwaaqadii iyo wixii ay socdaan waana wax runtii aad iyo aad lagu ammaano dalka dowladnimo waan soo dhisnay oo shakalkii dowladnimo waan soo samaynay oo waxaa soo sameeyey maxamed xaaji ibraahim cigaal ilaa u naxariistee cabdiraxmaan tuur ilaa u naxariistee wax chance isaga muu helin oo dee wuxuu ku beegmay xilli adag oo dadku is haystaan baahan tahay dhibaato jirto chance muu helin markii dambe cigaal ayaa alleele sameeyey dadaal badan iyo sacrifice badan oo dalkii u sameeyey dowlad systemkeedii hubkii ka ururiyey nidaamkii u taago dhidibada u taagay dimuqraadiyaddii doorashadana sii bilaabay inkastoo madaxweyne riyaale uu isagu markii dambe sameeyey doorashooyinkii dalka ka dhacayay walow uu marar badan dib uga dhacay haddana waxaa lagu sheegaa inuu isugu sameeyey dowladda axmed maxamuud siilaayo ayaa iyaduna timi runtii dalku baahi indhuhu isku haystay oo dhaqaalo badan ma jirin dhaqdhaqaaq badan ma jirin hay-ado badan ma jirin waxbaa isku xidhnaana dadku way aad bay u dhibaataysnaayeen dee magaalooyin badan baa muuqaalkooda isbedelay sida matalan magaalada hargeysa kale booram oo kale way isbedeleen burco kale way isbedeleen magaalooyin badan baa isbedelay xitaa lasxaabad meel kasta tagtid waad arkaysa isbedelka sawirkii ama imagekii shalayto intaan dowladdu imanaya maanta dee waad yaabaysa wasaaradihii buulasheer ku jiray ama guryaha kaleda ku jiray waxaa loo sameeye waa la arkay warkaasoo dhan waa laga dhegsan yahay haddaba waxaan doonayaa pointka ku socda waxa weeye dowladda maanta la dooranayo waa inay noqotaa dowlad lagu doorto in ay soo celiso low an orderka iyo kala dambeynta taas ayaad moodaa in xoogay khalkhalka qofka markuu dibadda ka yimaado ayuu arkaya waayo ciyaarta qofka ciyaaraya iyo ka daawanaya waxa arkaya ka daawanaya ee khaladka arkaya marka booliskoo kale hadday labiskooda yihiin oo marka qaar adag si dayacan marka qaar oo ay si yani aggressive ama adag oo kululoo dandaansi dadka ay ula dagaalamayaan oo ay samaynayaan shaxaadkii iyo wixii hoos kala yaro batay ciidamada waxay u baahan inay noqdaan dishiblin yeeshaan sharciga nidaamka ilaaliyaan muwaadiniintana ay ilaaliyaan tixgeliyaan shacabku waabay tixgeliyaan laakiin marka qaar shacab adarkasa askari caayay oo hooyadii wax walba caayada la yaabas marka qaar waxaa askari isagu xadgudbaya oo dadka caayayo caynkan marka waxaa arkaysaa laba askar oo igeys caayaya maalin waxaan arkay saldhigga burco waxaan ku arkay nin taliya ixdigla ah oo marka reermaryac maawis caadaystay iyo nin askari oo markaa ilaalinayo labisan oo isagu alifyo ahaa mise waxaa mulahayn kii ixdigla ahaa ayaa soo galay inuu iska soo galaa buu doonayey ma garanayo waxa khaldamay kan laftiisa inuu garanayo ayay ahayd moogta laakiin waxaa dhacday in ay isku dhaceen waxaa dhacday inuu kii ixdigla ahaa ninkii raacayay oo hanjabay marka dee may ahayn dadka hortooda waxaa isku sameeyaan askarta marka askartii baa marka qaar isqabsanaysa shacabkii baa mararka qaar askarta lafta caayaya oo aad naxaysa waxay mararka qaar kula hadlaan askarta qaar inkastoo laga baqo inta badan waxaa jirtoo kale muxuu ahaa يعني عسكر لفتين نظامكم كير خالدين مركا يدك سفر بد سفر بد مركا محنو عم سنة تولد ما أنت منسا إن ده قدومي قدومي مصبي عبدي فنتي وحلي هذا هو عسكري لكن أنا عم سنة حلقن لو باهي ماشي كلي ما أنت نجت السنوات هدي أي تهاي نظامك أو دبلوه هكذا يكاد بنتي يو qabaa'ilkan baanaya ee dagaalamaya hanjabaya ee xoogeystay waad moodidba dowladda inay ka yara gaban marka qaar muxuu ahaa maxay tahay qabaa'ilkii taas waxay u baahan tahay dad maadaama halkan marayno ciidamadeena xoogeysteen waxalba xoogeysteen shacabka in xaqoodan la siiyo khaladkan laga qabto aan loo ogolaan haddii kale dee maalinba maalin way furfurmaysaa deedna waxay ka gaadhaysaa meel aan laga soo noqon karin intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa
waxaan rajeynayaa Somaliland in ay guul gaadho insha Allah maalin walbana waxay dee ka soo baxaysaa baaq Somaliland lagu taageerayo oo kii u dambeeyay oo ahaa Raila Odinga leenama taageerin haddii aynan u istaageerin hadalka waxaan kusoo gabagabeynayaa in la soo dhaweeyo maamulkaas Khaatumo oo hogaaminaya Professor Cali Khaliif Galeer wixii xaq u lahayn la siiyo wasiiradan ay beesha haysato keligeedna waxba uma taraan beesha waa dad iyagu gaar u shaqaysta oo shaqaale caadi ah way fiicnaan lahayd inay intaas oo wasiir oo isaaq wax u qabteen waxba uma qabtaan taasoo jirta haddana dadkan kalena oo dulmeyna booskooda haystaan marka waxaan rajeynayaa oon ku daraya ku kabaya dowladda soo socota nabadgelyada iyo law orderka say u kala ilaalinayso inay ku darto xagga qaybsiga manaasibta oo la qaybsado si cadaalada loo qaybsado xitaa aan sometimes aan lagu xidhin doorashada maadaama oo dalka loo sameyn yahay in marxalad gaarna uu marayo in maxay tahay la qaybiyo si fiican loo qaybiyo waa mar kale aniga oo ah wariye Siciid Jamaal aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan rajeynayaa in aan waxa dadka wax u taraya sheegay ama wixii igu jiray aniga waan rabay inaan idinla wadaago aad iyo aad baa u salaamantihiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته